kulankani oo ahaa mid lagu soo bandhigayay qorshaha istiraatiijiyadeed ee waxbarashada dalka ee 2017 ilaa 2021 ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana kulankaasi soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici, xubno kamid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Somaliland, hay'adaha wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda waxbarashada, jaamacadaha dalka iyo siyaasiyiin. Waxaa halkaasi hadal ka jeediyay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta Somaliland Cawaale Ibrahim Shirwac, wasiirka hore waxbarashada Somaliland Cabdilaahi Dheere, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Somaliland Cali Yuusuf Axmed iyo mas'uuliyiin ka socda hay'adaha wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda waxbarashada. Waxaanay soo dhaweeyeen qorshahan loo dejiyay lagu tayeeyo waxbarashada Somaliland. wasaaradda waxbarashadu ay tahay malaha iyo wasaaradda caafimaadku inay yihiin sektarada diyaarsaday iyagoona caawimo badan looga baahan strategic planskooga aad baad u mahadsantiin. qorshahan waxa loogu talagalay amba toobiyahani waxa la wixii waxbarashada caawinayo dhan ayaa raacaya maaha un global partnership for education maaha. waxaan u rajaynayaa daafurkan 5 sanadood ee soo socota inuu ilaahay u hirgeliyo oo aan rajaynayo inuu meel fiican xagga waxbarashada aynu ku gaari doono. Waxa isaguna halkaasi hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, waxaanu ka waramay muhiimadda looga gol leeyahay qorshaha istiraatiijiyadeed miisaaniyadda dawladdu in allaaliyo intay dawladdu karaysay way bixisay, way u goysay waxbarashada, way u qoontaysay. marka wasaarad ahaan miisaaniyadda la eego marka ciidamada iyo nabadgelyada laga yimaado intii ugu badnayd dhaqaalihii ugu badnaabaa dawladdu u qoondaysay waxbarashada. haddana dee ma gaari karo, waxba kama gaari karo. haddaynu doonayno inaynu balaankaa fulino, qorshaha fulino iyo wixii la mid ah waxay u baahan tahay in dhaqaale ka badan la helo. laga maarmi maayo in dadweynuhu, waalidku in ay ka qayb qaataan, in ummaddu qurba joog iyo qurul joogba ay isugu tagto in waxbarashada la wada tayeeyo. waxa isaguna geestiisa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. waxa uu ballan qaaday inuu tayeenayo waxbarashada. tallaabooyinkii ugu horreeyana waxaan qaadnay sida soo socota. kow waxa madaxweynuhu ballan qaaday in waqti daabacaad ee dugsiyada hoose dhexe in dhammaantood bilaash looga dhigo. qorshayaasha ballan qaadnay waa la fuliyay. laba in macallimiinta loo kordhiyo mushaharka iyo aad loo ogaaday inay lafdhabar u yihiin awoodda dhaqaale ee loo leeyahay xadidayso in 20% loo kordhiyo macallimiintana waa qorshihii labaad la qaaday. gabagabadii ayaa halkaasi abaalmarin lagu guddoonsiiyay shakhsiyaadkii ka soo qayb qaatay qorshaha istiraatiijiyadeed ee waxbarashada.